Kusoo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waan kusoo qaadan doonaa bilowgii fanka casriga Soomaaliga. Cabdi Deeqsi Warfaa oo ku magac dheeraa Cabdi Sinimo waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee bilaabay heesta balwadda ee muusigga leh. Cabdi Sinimo waxa uu darawal ka ahaa gaari xamuul ah oo kala gooshi jiray magaalooyinka Boorama, Seylac iyo Jabuuti. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu Cabdi Sinimo ka soo baxay magaalada Boorama ayaa uu gaarigii uu watay dhexda xumaaday. Dabadeedna inta muddo ah ayaa uu dhexda ku sii jiray. Kolkii gaarigii uu hagaagay uu yimid magaalada Seylac, xilligaas ma aanay jirin marfashyada lagu qaylo, sidoo kale ma aanay jirin guryaha lagu qaylaa. Waxaa adkayd in aad dumar ah oo aad maraysa aragto. Sidaa darteed, Cabdi Sinimo islaan leedahay ayaa u fadhiistay. Waxaana guriga joogtay inan la odhan jiray Indho-cad. Inantaas ayaa uu islaanta ku odhan jiray Cabdi Sinimo waan kuu dhisayaa. Sidaa ayaa aana u soo dhowaan jiray oo uu la sheekaysan jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dagaalamay nin gaari ah iyo Cabdi Sinimo. Ninkii uu Cabdi Sinimo nabarro gaarsiiyay. Dabadeed arrintooda ayaa la dhex galay. Ninkii baa gooyay oo la siiyay Cabdi Sinimo. Maalin maalmaha ka mid ah gaarigii ayaa ka xumaa goorfii isaga oo baakada gaariga ku tiirsan oo ka tiiraanyaysan. Ninkii uu islaayay iyo arrinkii inanta ayaa u yimid wiilal dhalinyaro ah oo ay inanta Indho-cad isku xigeen. Waxa ay ku yiraahdeen Cabdi Sinimo, maxaa aad gurigayga ka soo doontay kaa yeelay? Waxa uu ugu jawaabay, islaanta habaryarta ah ayaa leh aan imaadaa. Wiilasha ayaa waa ay u hanjabeen Cabdi Sinimo waana ay ka tageen. Markii ay ka dhaqaaqeen ayaa uu ereyadii u horreeyay ee balwadda ahaa tiriyay. Wuu yidhi, balwoy hooy balwoy wax i baleeyay mooyaane, balwoy hooy balwoy wax i baleeyay baabuuray, balwoy hooy balwoy. Ereyadaas intaas markii uu yidhi ayaa uu garan waayay wax kale oo uu ku daro. Dabadeed ayaa loo keenay birihii ka xumaa gaariga. Markii uu gaariga la sameeyay ayaa waxa uu u baxay Boorama. Muddo ayaa uu ku maqnaa oo aanu ka noqon Seylac. Markii inanta ayaa uu u dirtay hadiyad oo ka kooban sun iyo koofiyad ah oo ay si qurux badan u toshay. Waxa ay ugu dhiibtay gabadh kale oo waxa ay u sii fartay fariin jacaylkeena xaggee baad dhigtay. Markii ay fariintii gaadhay ayaa uu kaga soo jawaabay hees kale oo balwo ah isaga oo xusaya niman u hanjabay. Waxaanuu yidhi, iyadoo uurka hooyadeed ku jirta Indho-cadkay ayaanse la yidhi, balwoy hooy balwoy wax i baleeyay mooyaane, haddana iyadoo adeegaysa Indho-cad arki maysid la yidhi, balwoy hooy balwoy wax i baleeyay mooyaane, anigoo dhar cad sooma dhuuman karee dhuwaa ma soo hagoogtayee. Fanka Soomaalida ee casriga ah halkaas ayuu ka soo bilaabmay. Wixii ka horreeyay ee Soomaaliduna lahayd fan aan ahayn ciyaaraha shanta iyo jibta leh. Cabdi Sinimo waxa uu tegay magaalada Boorama waxaana ka soo sameeyay koox dhalinyaro ah oo balwadda ku heesta. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ahaa Ibraahim Maxamed Garabyare, Daahir Muuse iyo Khadiija ciye Dharaar Khadiija Balwo. Xilligaas ay balwaddu bilaabantay waxa ay tuman jireen tanaag iyo wax la mid ah. Hase yeeshee waagii dambe waxay heleen def. Defku waxa uu ahaa durbaan yar oo la tumi jiray. Waxa markii ugu horreysay u keentay islaan la odhan jiray Barako oo reer Seylac ahayd. Balwaddu waxay ka bilaabantay dareen dhibaato, dareen jacayl iyo dareen wadaninimo. Xilligaas wixii ka dambeeyay balwaddu waxa ay u faaftay geyiga Soomaalida degto oo dhan. Waxa ay ka baahday magaalooyinka waaweyn ee Somaliland gaar ahaan Hargeysa iyo Burco. Dhalinyaradii bilowday balwadda oo ka hadlaya sida ay balwaddu u faaftay waa kuwii lahaa balwaddii baxsatoo baray qabatay Big Four ma ku baadi doonaa. Xilligaas wixii ay geyiga ka jiray nimankii la odhan jiray Kaba-cad. Halkaas ayuu noogu joogay qaybta labaad ee muuqaalka. Waxaan soo dhiganaa YouTube-keena. Haddaba si ay kuu soo gaadho muuqaalka like, kuna soo biir si ay qaybta labaad ee muuqaalka idiinku soo gaadho.